السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر هذا channelka maanta waxa way walidiin odayeynaya ya talaba maanta leedin soo jeedinaya gaar ahaan dadka qurbo joogta oo Soomaalida oo ku nool Yurub ya marka dadkaas baan ka mid ahay laftigeyga marka soo ogtihiin waxa way dadka oo qurbo joogta oo ku nool Yurub iyo Mareykanka waxa way halkaas waxana keenay waa duruuf ya amandaro ba dhakentay wadankeena burbura iyo dhaqaale daro baan keentay marka waxa way halkaas faa'iido baa ka helnay oo aan ku haysan wadankeena alxamdulillah faa'iidadaas waxa weyn in oo si amaan ah aan banaanka ku mari karno oo guriyeed u tagi karno oo shaqadeena u tagi karno ya laakiin halkaas dhibaatooyin badan waa u nimaan ya marka dhibaatooyinkaas waxa kamid ah insuurnimo baashalo yes marka baashaas waxa way ba halkaas kula kulanay marka dadka oo Soomaalida oo kale waxa way marka shaqada dalbanayaan oo kale sida reportka ugu jidaan shaqooyinkii waa lagu cusuriyaa marka magac muslim markii la arko shaqooyinka la dhaafiyaa ya markii ay police arkaan qof oo madow ama qof oo muslina waxa way jirjil baa lagu sameeyaa oo si xad gudub ah baa loola dhaqmaa oo taas waxa way dhibaato ay keento cunsurnimo haddana waxa way dhibaato kale oo meesha ay Soomaalida kala kulmeen waxa kamid ah Soomaalida wali gaar ahaan Yurub ku nool kale caruurihii baa laga haystaa ya marka qof Soomaali ah la arko caruur haysta dawladda ku dhiirata oo ku soo orda caruurta la dadasha laakiin dad kale oo la noolnahay wadanka ay saas loogu dhiirado marka ayaga waxa la qabtaa markii ay dambi galaan markii caruurta ay dilaan markii caruurtooda ay farxumayaan markaas dawladdu imaanaysa caruurta ka qaadanaysa ya marka qof Soomaali markii la arko waxa way waa lagu dhiirada taas waxa way dhibaato ku saleh insuurnimo way ya marka dhibaatooyinkaas oo dhan waa dhibaatooyin la xalin karo way ayadoo sharciga la isticmaal karo ya waa dhibaatooyin la xalin karo way ya marka Soomaali kaliya ma dadka insuurnimo lagu sameeyo dadka dhan baa lagu sameeyaa ya wixii ajnabi baa lagu sameeyaa xitaa yahuud baa lagu sameeyaa marka ayaga annaga waxa kala duwan annaga yahuud dad isku xiran way yahuud dad isku xiran way ya wax yar hadii loo geysto soo ordayaan mudaharad bay sameynayaan ya maxkamadda bay tagayaan ya Soomaali laakiin hadii la arko waxa way ay shib isku fiirsadaan dhibaatada hadana Soomaali dad isku xiran ma ya Soomaali waxa way san ugu jidaan dad qabiil jecel way shan qof baa loo socdaa ayago dhan dad badan maaha dad kala badan hadii si aan u fiirsasin laakiin shan qof oo Soomaali maanta isku ma keeni kartid qabiilada darteed baa la isku dirirayaa ya markaas walba waxa maqlaysaa qabiil jaaliyad qabiil leedahay waxay dhiganaysaa xaflad ama maamul goboleed baa xaflad jaaliyad maamul goboleed baa xaflad dhiganaysa laakiin waliga maqlaysid jaaliyad Soomaaliyeed baa xaflad dhiganaysa ya marka hadana jaaliyadaas laftigooda waxa way arin qabiilad baa laga shaqeeyaa dhibaatooyinka oo dadkaas halkaas u jeeda dhibaatooyinka hortaagan waliga laga shaqeeyo haday noqoto mid cunsurnimo ah haday noqoto mid oo caruurta laga haysanayo ama haday noqoto mid oo shaqada waxa way laga shaqeeyo si loo xalin lahaa ya waxa iska rahay maaha waa kan ninkan Ali Xaraare la dhahayo baa xaqiijinaya firsada barnaamijkan buu markuu arintan ka sheegay waan ku jaaliyada Puntland ee gobolka Minnesota ama Mareykanka inqilaab xoog la ka dhacay xoog la hada daba ki xoogaha arrin salma وفلاي انقلاب كان dadka soo aablay waxa ku jira Saciid Abdullaahi Dani haye يجحا وحوي مدحويني بلاريو وزير كان marka horta marka warsan ku weydiyo jaaliyad madaxweyne maamulay wali ma samartay may jaaliyadu dadka gudaha qof walba isaga gudihiisa ma qurbaha jooga oo qurba joogta rasawtihiin mardow qurba joogta oo Soomaalida qurba joogta oo ku nool Yurub dhibaato kale baa ku soo korortay dhibaatada waa tana ninkan Xasan Sheekh la dhaho oo imaanka la qaaday baa ka yimaaday marka heshiis wuxuu la galay dawladda Jarmalka marka heshiiskaas waxa weeye waa heshiis oo sharci darro ah way laba jeer bay sharci darro tahay kow lacagta la siinayo oo maxaa la dhahay dawladda Jarmalka bixinayso mid waxaan dawlad ku sheega la qaadanayaan ma mid Xasan Sheekh uu jeebkiisa gashan doono ya oo waxa weeye ninkan oo Jarmalka inta ugu jeedaan oo madaxda Jarmalka oo la Scholz la dhaho kow waa kaas sharcigi buu halkaas uu ku gafeeyaa marka nasiibdaro waxa meesha dadka Jarmalka haysto waxa weeye arintii wali laga aaminsan dadkii oo qaxootiga oo sharci loo diiday waxa lagu bilaabaya in oo la tarxiilo qaarkood hadda xamar waa laga dejiyay ya marka waxa la rabay in ay isku timaadaan lacag baxsataan oo sharci loo yarqabsataan sida oo heshiiskaas loo kansalo oo Xasan Sheekh uu lacagta soo qaadan iyo in oo maxaa la dhahay dad oo Soomaaliya oo ka soo cararay rabshay dagaal in wadan uu dagaal ka jiro lagu celiyo
يا حسن شيخ حمر كليو بو كنترولا حمر ودنا حتى ما كنترولا حافظه كليو كنترولا يا marka sidee u dadkaas amaankooda ku ilaalin karaa ya hadda isku day asaga laftigiis baa dadkii barakeen ku sameeyay ya rabshay dagaal oogay maanta hadda hadlayno ya xitaa boosaskii oo xamar ku yaala oo dadka masaakiinta joogeen ya oo ka soo cararay wadanka intiisa kale u barakeen ku sameeyay oo boosaskii gadanaya ya marka sharcigaas waxa la yiraahdaa dadkii inay dad Soomaalida ku nool Jarmalka inay la dagaalantamaan ya oo mudaharaad sameeyaan oo dawladii ku mudaharaadaan Jarmalka oo loo yar qabsadaan oo faraq ku dhigaan ya marka sharcigan haddii iskaga aamustaan waxa weeye wadamada kale waa la hirgelinaya hadda mar hore waxa ku dayanaya Denmark waa ku dayadeen Norway Sweden Finland Italia waa sidoo kale ku shaqeeyaan ya marka taas waxa keenaysa waa Soomaalidii oo aan hayn dad isku xiran oo maxal dhahay dad isku xiran maaha oo u ololaya inay dhibaatooyinka hortaala inay wada xaliyaan ya marka Soomaalida sida loogu dhiirado oo tarxiil loogu khasbo dad kale tarxiil looguma sameeyo ya waxaan iska dhahay hadda example-ka alintusa indiina hadda ku arkaysan hadda taqaanaan baa malaynaya wadan Albania la dhaho oo Yurub ku taala wadankaas waxa weeye isku xilli bay Albania Soomaaliya burburtay dad badan oo qaxooti ah oo Albaniyiin ah yimaadeen Yurub marka dadkaas waxa weeye waxa ku jira dad gangs ah oo ka shaqeysta baasha daroogada qaar waxa weeye dadka laayaan qaar waxa weeye waa baabuurta xadaan oo expert waxas ku yihiin dad criminal baa ka jira oo dad ku dhex jira oo la ogyahay oo sharcigi jabiya oo la soo qabto oo maxkamad la saaray marka normal ahaan waxay ahayd dadkaas kale marka la soo qabto si ay ugu jidaan in la tarxiilo oo maanta wadankooda Albania dib loogu celiyo ya sababtoo Albania maanta waa wadan oo nabad ka jirta iyo dawlad ya dalxiis baa Yurub kale looga tagaa ya laakiinse si ay ugu jidaan Soomaaliya soo loogu dhiirado dadka kale ya ninkan Albaniga dad bulay si ay ugu jidaan dad bulay ya laakiin tarxiil uu ka baxsaday sababtoo sharciga buu isticmaal u jidaan marka Soomaalida si loogu dhiirado dad kale loogu dhiirado marka waxa fiican in ay ku dayataan dadkan Yahuud waa aragteen waa dad yar way ya dad yar way Yurub dhan hadda fiirsid iyo Mareykanka dad badan maaha laakiin ayaga wax yar hadii dawladda xad dhaaf ku samayso ninkii ba fara ku dhagayaan media bay tagayaan mudaharaad bay sameynayaan dacwo bay maxkamad ka bilaabayaan marka dawladdii ninkii oo saas jagaraadis ku ahaa boqolaal problem buu furfuraya marka xanje oo kale buu ka noqdaan marka saas kale baa la idin rabaa inaad samaysaan marka arrintan waxa weeye waa dhibaatadana inta wajidaan oo Xasan Sheikh uu ka mid yahay waa wax la xalin karo weey ya wax la xalin karo weey laakiin waxa soo dhan muhiim ah in dadka Soomaaliyeed isku yimaadaan oo dhibaatooyin kor yaala oo ku saleysan cunsurinimada inay ayagoo dada la dagaalantamaan oo sharcigii dhanka sharciga ka soo maraan oo mudaharaadaan oo media tagaan haddii kale Soomaaliya dhibaatooyinkaas way ka weynaanaysaa ya haddana waxa weeye dad kale laguma dhiiranayo sida Soomaalida lagu dhiiranayo marka arrintan waxa weeye waa arrin wax la qaban karo waa arrin wax ka qabad u baahan way hadda ya hadda Jarmalka dadka jooga kale waxa weeye nasiib darro waxa weeye arrintii oo Xasan Sheikh uu keenay dhibaatada Xasan Sheikh waxa laga aamus dadkii oo masaakiinta ah oo la tarxiilay waa lagu fiirsanaya marka saas kale uma baahna inay ka kacdaan weeye oo maxal dhahay dawladda fara ku dhigtaan sababtoo adinka ayaga sharciga u simantiin marka xaqiina ilaashada